الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد. أيها الأحبة، dhammaan waan islaamayaa maamul iyo arday iyo macallimiinba. Kelmadda aan rabo inaan maanta la yidhaahdo waxay tahay muraadka bulshada ama qofka bini aadamka uu ku leeyahay deegaanka uu ku koro. deegaanku ama environment ama biica midii waa deegaan طبيعية midna waxay dhahaan waa deegaan xadaariya midii waa deegaan dabeeciya oo qofka meesha uu ku nool yahay cimiladeeda nooca ay tahay isla markaa cunada uu cuno waxay ka samaysan tahay. midna waa deegaanka xadaariga oo ah meesha uu ku nool yahay afka, luqada, diinta, dhaqanka, akhlaaqda, aragtiyaha, caqaa'idda, wax laga rumaysan yahay. qofku muuqaal ahaan wuxuu u ekaadaa waxa uu cunay nooca uu yahay. haddii qofka bini aadamkii maalan uu cuno baruur badan iyo carbohydrate badan, sidee buu koritaankiisu noqonaya? waxaa la rabaa inuu noqonayo qof buuran, soo ma? waayo wuxuu cunaa ka muuqanaya. tusaale kale, baqe iyo cabsi soo isku af Soomaali labaduba maaha. wuu cabsanayaa, idinku ma ku hadashaan? maxaad tidhaahdaan? wuu baqayaa. waa laba erayo isku macnaa, labadabana macnahooda waa taqaaniin. laakiin deegaanka wuxuu ku baray inaad in badan isticmaasho maxay erayga baqo oo lagu celceliyey ayaa deegaanku ku baray. meesha baqa ka jira inaad odhan baa laga yaabaa, haddana inaad markaad isimka timaado aad tidhaahdo halkaa cabsi baa ka jirta. erayadaasoo dhan waxaan u tilmaamayaa, waxaan rabaa inaan idiin sheego deegaanku raadka uu idinku leeyahay. afkaad ku hadlayso adigoo garanaya uu Soomaali yahay ayaad haddana ka deegaanka markaa ka noole lagu isticmaalo oo qura aad ku isticmaashaa. maalan erayga eeg iyo dhugo iyo fiiri waa isku wada macne, soo maaha? idinku kaa isticmaashaan eeg. laakiin marka aad rabto in xoog loo eego qofka maxaad ku tidhaahdaa? u fiirsa baad tidhaahdaa. hadda fiiri markii hore maad isticmaalaynin, laakiin marka aad rabto inuu xoog u fiiriyo ayaa waxaad odhanaysaa maxay? u fiirsa baad odhanaysaa. waxaan erayadaas Soomaaliyeed ee macnahooda taqaanin idinku tilmaamaya waxa weeyaan in awgaataan afka aad ku hadashaan deegaanku raadka uu ku leeyahay, iyagoo erayadaa wada taqaanin haddana midna inaad xoog u isticmaalayso midna aanaad isticmaalayn. hadday luqadu sidaa tahay waxaa la mida akhlaaqda iyo kaljarka iyo dhaqanka iyo caqaa'idda iyo waxa dadku ay rumaysan yihiin oo dhan. haddaba haddaad rabtaan inaad si fiican u kortaan oo dhaqankaagu fiicnaado oo akhlaaqdaadu fiicnaato oo cibaadadaadu fiicnaato oo aqoontaadu fiicnaato, waa inaad isku daydaa inaad doorato deegaanka aad degan tahay halka aad kaga noolaanayso. maalan magaaladu suuq baa ku yaalla, maqaaxaa ku taalla, masaajidaa ku yaalla, iskuullaa ku yaalla, jaamacadaa ku yaalla. waa deegaanno ka mida deegaanka aynu degannahay. mid walba dhaqan baa lagu hayaa. kaad badsataa dhaqankiisaad yeelanaysaa. haddaad suuqa badsato maxaad yeelanaysaa? dhaqanka suuqa lagu hayo. haddaad masaajidda badsato maxaad yeelanaysaa? dhaqanka masaajidda lagu hayo. haddaad TV-ga badsato maxaad yeelanaysaa? dhaqanka TV-ga lagu hayo. sida ogeed baa waxaa muhiima
qofka muslimka ahi inuu in badan doorto meesha uu degayo, meesha uu istaagayo, meesha uu ku noolaanayo, cidda uu la dhaqmayo. ilaahay isagoo nabigiisii muxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam la hadlayo wuxuu ku yidhi: wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy yuriiduuna wajhah. ilaahay wuxuu tilmaamayaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy. waxaad nebi maxamedow la joogtaa oo naftaada ku xabistaa baa ilaahay leeyahy maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy, kuwa ilaahay baryaya u cibaadaysanaya gelin horiyo gelin dambaba. macnaheedu waxa weeyaan deegaanka aad noloshaada u badinaysa ha noqoto meesha ilaahay cibaadadiisa lagu hayo, dadka ilaahay cibaadadiisa haya. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay malaa'ig baa jirta dhulka socota, dabeetana marka ay helaan meel ilaahay kitaabkiisa lagu baranayo, diin lagu baranayo, marka ay helaan ayay ku soo xoomaan malaa'igtaasi dadkaasi ilaahay bay u bariyaan. waa xadiis dheer, laakiin halka aynuu soconno maynu ka qaadan. dadkan ilaahay bay u bariyaan, ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa dadka waanu dembi dhaafay. markaasay waxay yidhaahdaan ilaahay waxaa la jooga mid isagu dan kale u yimaan kitaabka dhigashadiisa u iman. kitaabka isagu inuu barto uma imanine shaqo kale u socday baa xaajo kala keentay. ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa malaa'igta humul qawmu laa yashqa bihim jaliisuhum, waa duul cidda la fadhiisataana aanay guuldarraysanin. macnaheedu waxa weeyaan xataa haddii aanad cilmiga baranaynin ood iska soo fadhiisatay masaajidka iyadoo tafsiir la akhrinaya iska fadhiisatay, haddii kuwaa loo dembi dhaafaadna in lagula dembi dhaafaaba ay mudantay. waa humul qawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum. haddii la fadhigooda lagugu dembi dhaafayo, la saaxiibkooda iyo la noolaantooda iyo la joogistooda ka warran. haddii la fadhigu unaad iskala soo fadhiisatay lagugu dembi dhaafay, inaad la noolaato, la deganaato, la saaxiibto ka warran. sawgeed buu nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam: almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil. qofku wuxuu haystaa diinta saaxiibkii, ee qofkiin ha eego cidda uu la saaxiibka noqonayo. qofkiin ha eego maxay? cidda uu la saaxiibka noqonayo. waxau nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jaliiska saalixa ah iyo jaliiska suu'a xumi iyo waxa u dhaxeeya. qofka cid fiican la fadhiista wuxuu la mid yahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qof meel uduga lagu gado fadhiistay. dadkan uduga gada waxyaabaha udgoone carfa, cadar ha noqdo, uunsi ha noqdo, qori ha noqdo, wuxuu doonaya ha noqdo, dadkan meelaha cutuurta iyo waxa carfa lagu gado fadhiista, haddaad kaa la fadhiisata buu nebigu tilmaamayaa imaa inaad wax carfo fiican dee ka gadatid, ama inuu ku siiyo, ama intaad la fadhido calal aqal hawo fiican oo udugle inaad heshid. haddaad fadhiisatana buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saaxiibka xumina wuxuu la mid yahay adoo la fadhiistay meesha forjinku waa meeshan birta lagu tumo. birta si loo jilciyo dab baa lagu shidaa. haddaad kaa la fadhiisato dabka birta ku shidaya tumaya, dee ama maraduu kaa gubi, ama dambaskiisa iyo qiiqiisa indhaa kaa ridi, ama uur xun baad ka heli doontaa. yacni meel fadhigeedu fiican yahay maaha. taasi waxay tilmaamaysaa deegaanka qofku uu degan yahay, ama uu cidda uu la dhaqmayo, ama cidda uu la saaxiibayo, ama meesha uu joogsanaya raadka ay ku leedahay. xataa adigoo aan is ogayn bay raadka ugu leedahay. sidaa awgeed haddaad rabto jidhkaagu inuu caafimaad qabo, wax caafimaad qabo cun. haddaad wax suna cunto jidhkaagu suu noqonaya? waad bukoonaysaa. waxaa la mid ah
haddaad meel dhaqan xun la tagtid waad bukoonaysaa laakiin xaggaad ka bukoonaysaa dhaqanka iyo akhlaaqadaad ka bukoonaysaa waxaad ka bukoonaysaa suluuga sida bini aadamka loola dhaqmo haddaad dad ciyaala suuqa raacdid adna ciyaala suuq umaad noqonaysaa akhirka qof caytama oo dadka maaga oo haddaad raacdo gruub xam badan leh oo had iyo goor dadkun ka warrama adna xanlaawo cusub umaad noqonaysaa arday cusub oo traininkaa qaato ka soo baxay baad noqonaysaa waxaan leenahay marka qofka bini aadamka ahi waxa raadeeya environmentka ama bii'ada uu ku dhaqmo bii'adaasi ha noqoto waxa la cuno haddii waxa la cunaa uu noqdo bariis iyo baasta iyo daqiiq cad dad tafeenna yaryar umaad noqonaysaan sida soomaalida maxaa ina wada yaryareeyey soomaalida hore sidan ma ahayn soomaalida hore dad dhaadheer oo xooggan bay ahaan jireen waayo waxay cuni jireen deegaankooda wixii laga heli jiro u badnaa hilib iyo caano dabeetana lafahooda kori jiray oo dad korran oo xooggan bay ahaan jireen haddadan soomaalida yurub joogta dhallinyarada yaryar ee qamandida iyo waxaa cuntee waxaan iska daysay waa dad dhaadheer oo xooggan idan qofku wuxuu cunaa buu noqdaa caqliguna waxa loo sheegaa buu xallilaa haddii kuturikutaanun caqligaaga aad u sheegto iyo warka suuqa yaalla waxa aadnaad ku fakaraysa iyo waxaad ka warramayso oo dhammi qabiil iyo waxa suuqa lagu haya intaasuu noqonaya hadduu caqligaagu noqdo mid cilmi barta oo ilaahay kitaabkiisa barta oo sunnada nebiga barta oo aqoonta kale barta waxaad noqonaysaa caqli waxa ka soo baxa uu noqdo aqoon mid diineed iyo mid adduunyo miday doontaba ha noqotee caqli waxa ka soo baxa uu aqoon noqdo sida ogeed idinku waxa ku jirtaan wakhtigay korriimadu ugu fiicnayd uguna degdega badnayd qofka bini aadamka ahi min dhowr iyo 10 jir ilaa iyo 25 jir buu korriimada ugu fiican koraa lafaha bini aadamku waxay joogsadaan 25 markaad marayso 25 markaad joogto inta dherarkaagu iyo unbood ahaanaysa haddaad cunnada isku sii daldasho hareerahaad u faaxi doontaa una kor u socon maysid kor way dhammaatay 25 markaad gaadho kor halkaa dhaafi maysid idan wakhtigii baa joogtaan jidhku korayay waxaad joogtaan wakhtigii caqligu korayay waxaad joogtaan wakhtigii aqoontu koraysay waxaad joogtaan wakhtigii dhaqanku korayay waxaad joogtaa wakhtigii afkaagu korayay waxaad joogtaa wakhti dhammaantaa aad korayso jidh ahaan caqli ahaan aragti ahaan fikrad ahaan qaab wal oo aad tahayba waad koraysaan maanta waxaa u baahantihiin haddaba inaad ka fakartaan war sidaan u koraa mise qalloocan baad u kori mise si hagaagsan baad u kori markay cunno tahay wax ku anfaca cun wax jidhkaagu uu baahan yahay cunno isu dheelitiran isku day inaad cunto sonkor ha iska buuxini marka ay tahay waxbarasho wax ku anfacaya baro isku day haddaad joogtaa wakhtigii jucbada wakhtigii weelka la dhaansan jiraye inaad si fiican u dhaansatid marka ay diin tahay haddaad joogtaa wakhtiga ugu fiicnaayee diin la baranayay waxaan idiin sheegayaa waxaa ku jirtaan wakhti aan da'aan cimriga cidi kula lahayn markaad da'dan soo dhaafto wixii ka dambeeya waxay u badan tahay cimrigaagoo dhan in lagula leeyay dadweynaha xidhiidh badani kaala dhexeeya aabbaad noqon hooyaad noqon adeerbaad noqon shaqaalaad noqon masaajid baad jooga dad badan baa kugu xidhmi iminka cidina wakhtiga kulama leh adaa iska leh 24 saacadood adaa iska leh in yar aad waalidka caawisaa laga yaabaa in ay tahay waxaa cid kale kaa sugtaa inta kale adaa iska leh inta kale saad u isticmaalaysaa deegaankaad ku isticmaalaysaa majaliis saaxiib fiican baad yeelan ma waxaad akhriyaysaa eegi nooca uu yahay haddaad qashin akhrido qashin baad noqonaysaa caqligaagu haddaad qashin daawatana qashin baad noqonaysaa fikradaadu waayo caqligu wuxuu xallilaa wuxuu maqlayo wuxuu arka meel kale wax kama soo galaan inta badan
si kastoo aad u caqli badan tahay haddaad qurun ku gurto doqon baad noqon haddaad wax wanaagsan u sheegtana oo waxaad arkaysaana uu fiicnaado waxaad maqlaysaana fiicnaadana caqligaagu si weyn buu u kori doonaa marka aniga kelmadda aan rabo inaan maanta idin idhaahdo koobani waxa weeyaan waa koraysaana si quman u kora koritaankiina waxaa xukumaana waa bii'ada aad joogtaan bii'adaa aad joogtaanna hadday tahay waxa la cuno wax caafimaad qaba cuna oo soomaalidu iminka waa la qalday waxay moodaan waxa dabadda ka yimi inuu wax fiican yahay waxa waddankooda yaallaana inuu wax xun yahay waana rag baaca mushtara dadka waalay oo sidaa u fool xumeeyey waxa waddankiina yaallaa ka fiican wax badan oo dabadda laga keeno innaga waxaynu haysanaa garowga gallayda digirta fuulka caaraha hilibka reer miyigu inuu cunaa baynu haysanaa saxiiga maaha waxaa wax fiican moodaysaa bariiska iyo baastada iyo daqiiqda iyo macmacaanka iyo nacnaca iyo buskudka iyo waxaasaa reer magaalnimo moodaynaa waana qalad waxa deegaankeenna yaalla waxa ugu fiican jidhkeennu u baahan yahay waxa deegaankeenna yaalla ayaa waxa ugu fiican ee jidhkeennu u baahan yahay si caafimaad qaba inuu koro uma baahnin bariis iyo baasta iyo daqiiqtoona waxaynu u baahannahay gallayda iyo digirta iyo hadhuudhka iyo kuwa inay ka dheragtaan inay noqdaan kuwaasi kuwa ku dooran waayo jidhkaagu wuxuu u baahnaabaa iyaga ku jira waxaan rabnaa inaad fakartid oo garatid diintaadu inay tahay waxaad ugu baahi badantay inaad barato afkaagu dadku imika afka waxay ka yaqaaneen inta suuqa lagaga hadlay wax lagu kala iibsado inta af lama yidhaahdo af walba intaa waa laga baran karaa afka waxaa la yidhahdaa inta hiddaha iyo dhaqanka sida ee afkaagii rasmiga ahaa inaad si fiican u baratid intaad afkaaga ka taqaanaa unbaad af kalena ka baran kartaa weligaa af ingiriisi fiican iyo af carabi fiican baran kari maysid haddaanad afkaaga si fiican u garanayno intaad afkaaga ka taqaano umaad af kale ka baran afkaaga wax ku iibsashaduna haddaad ka taqaano kuwa kalena intaa umaad ka baranaysa haddaad afkaaga si rasmiya u baratana kuwa kalena si rasmiyaad u baran karaysa waxaan markaa maanta idin leeyahay waxa weeye waa koraysaan jidh ahaan caqli ahaan cilmi ahaan dhaqan ahaan si walba waa u koraysaan korriimadu haddaba yay idinka xumaanina u fakara sidii aad si fiican ugu kori lahaydeen oo akhlaaqdiina iyo adduunkiinaba u fiicnaysiin lahaydeen oo deegaanka u dooran lahaydeen ciddaad la saaxiibayso waxaad dhegaysanayso cidda aad u tegayso halkaad wax ka baranayso halka aad fadhiisanayso cidda aad la sheekaysanayso wuxuuba inay kuu noqdaan cid aad wax ku dooratay aqoon iyo cilmi iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo afaad ku dooratay iyo hedda ha noqdaan cidda aad ka durkaysa ha noqoto hadday cunno tahay waxaan wax ku taraynin hadduu dhaqan yahay dhaqanka xun hadduu akhlaaq yahay akhlaaqda liidata wax walba inta xunna ka tag inta kalena u dhowow oo la saaxiib ahaw oo deegaankaagu kaaha noqdo sala allahu calaa muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin